السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتو هذين سلامي لكن الديقسي أو صور أبتي مركلة حرجينا عافمات قبطان سان أنيو عافمات قبو إن عاوة ما أنت برنامج كينا وحو كسعدا مكهلا إن مقالة دا ليلة هذا حضور عاصمة القول كبقول koonfur galbeed ku taala magaaladaas magaalo qadiimi ah magaalo maaragtay aad muhiim u ah dii loo fiiriyo magaalooyinka maaragtay Soomaaliya dhanka koonfurta waliba magaalo aad istiraatiiji ah oo maaragtay muddo badan hataa dhibaatooyin soo martay marar argagixisada maaragtay qabaariidka iska haysteen aniga mudada laga joogo 12 sano ka hor laga saaray laakiin dhibaatooyinkii ku hayeen markaas mid ka sii daran ay hadda ay ku sii hayaan la muddadaas sanadooyinkaas ay ka maqan yihiin magaalada hatta waxa way afar dhinac ay ka jiraan aanan gaari soo gelin oo de tuulooyin ku dhow de wax dhawarka lagu keenay magaalada maro dhuumasho ah adiga muddo waa magaaladeedii magaalo wanaagsan laakiin ay u egtahay inay dawladda Soomaaliya hadda soo kabanaysa hatta waxa waaye gees iska dhigtay maadaama hadda ay socoto in qabaariidka wadanka laga sifeeyo oo barnaamijkuna uu soo hadli doona barnaamijkaas marka magaaladaas muddo waxa iska haystay niman maaragtay hogaamiye kooxeed ka mid ah muddo 30 sano ku dhawaad laakiin maanta ama sanad muddo sanad laga joogo sanadkeeda maamulka degmadaas ka dhisan sanadka wax yar uga haray maalmo sanad joogo waxa haysto oo hogaamiye u noqday ama loo doortay qof dhalinyaro ah wax soo bartay wixii saxan iyo wixii qaldan maaragtay oo deegaanku muhiimsan kala og marka maadaama hadda laga nastay dadkii 30 sano iska soo haystay oo wax baanan u qabanin dhalinyarada raba inay inta baaqo u diro oo maaragtay ku nool magaalada Xudur ama dhalinyarada ku dhashay magaaladaas ka soo jeedo oo joogo dunida dacaladeeda ama magaalooyinka Soomaaliya kamid ah in maaragtay isku duubnaadaan in ay maaragtay garab siiyaan maamulka degmadaas oo hadda waliba aad iyo aad maaragtay waxyaabo badan uu qabtay oo mashruuco iska xirnaa oo aan la hirgelinaynin mar walba maaragtay budgetkooda iska xirnaa la iska cunay oo hadda dib u furay in magaaladii eelboorkeeda dib loo dayactirayo loo sameeyo in maaragtay jidadka magaalada la qurxinayo si ugu ekaato magaalo maamulka gobolka Boqol caasimadiisa weyn marka caasimada qurxisatida meesha kala qurxin kartaa marka maamulka dawladda koonfur galbeed oo muddada maaragtay 5 sano ku sii dhow iska dhisnaa soo waxba u qabanin magaaladaas aan dhig kalno waa magaalada maaragtay koonfur galbeed ciidamadeeda 80% laga keeno dhalinyarada magaaladaas ku nool askarta laga keeno maanta ay magaalada Baydhabo iyo magaalooyin kale oo dawladda ay joogtay kuna sanayna waliba hatta ciidanka federaalka hatta maaragtay inta badan geesiyaasha amaanta lagu dhaaran karo la geenayo kuwa hadda u dambeysay hatta tababarka loo soo dhameeyo Uganda laga keeno hatta qabaariidka laga horgeenayo ku dagaalamayaan u socdaan waay marka maanta waxaan arkayay in ciidamadii ay u qudbeynayaan taliyaha qaybta 6aad iyo wasiirka amniga iyo gudoomiyaha degmada Umratu soo waxaan rabaa inta idin ka sheego ama idin kaga waano inaad u soo jeestaan horta saad ugu bixi leedeen maaragtay xabsiga aad ugu jirtaan cadawgan oo dhinacyada idinka taagan haween walba maaragtay xabad idin ku soo tuuray inaad iska dheereysaan oo ka xoreysataan wadooyinkiin aan furataan oo horumar sameysaan oo isku dubnaataan waxaan idin kaga digayaa waxay tahay hadda waxa socdo maamulka koonfur galbeed iyo mucaaradkiisa iyo hoola maaragtay siyaasadda inaad siyaasadaas maaragtay inta leedin ku soo dhaxqaray ama aad ku dhaxmilantaan oo hinda gaar ah u yeelataan horumarka degmadiina
وكعدم أنت واحد أصابرتين إن هذا هرمر كسميسان عند قف دلنيرة هجامي واه إن هذا جرب خبطان إن هذا دي هذا أكل أي حنين معارض محافظ لحظة هذا كل منه اللي أديك سنين وحكي لي ما عند اللي أديك سنين هو أدينك يعني اللي أديك سنين هرمر كهد إذن بالله هالصعود وذجر كي سياسة واحد إذن قوانا يسوق لبيا أو ده واحد خبط كيس الأركاء وقوانا كي كل واحد إذن قوانين جيس إنك مرتاحان وأنا أسكت ديسان أما أسكت إلى لسان سعبنا لطمع وقفل بو أسكت معنا وإحنا كودرين أسكنوا قناع هدنا ما أنت واحد ستين أن هرمر مغضى أو فرمي ولي بقدوميها برلمان قوس المجال كسو جيدو ولي عن مقلعي إنه ده برنامج بدن مشروعيال بدن ودقمدا سكمداسي ومارس التصوف الصحي كو واحد القوانايو وده هالجرينتو wax kulaha maanta waxa haystaan qof dhalinyaro ah maanta waxa haystaan dad maaragtay aftaahna oo social media ku jiro oo magaalada bilcada soo muujinay aad iyo dhalinyaro badan waxa arkay magaalada bilcada soo muujinay marka waxa idin sheegay inaad maaragtay u horgashaan inaad isku dubnaataan qabiil idin adeegsanin ama siyaasad idin adeegsanin kaliya inaad ka fikirtaan si degmadaas ama magaaladaas ay maaragtay ay uqurux badnaan lahayd u furnaan lahayd wadooyinkeedana indii aan u furan lahayn maanta hadii aanan anaga wada jir ahayn ama idinkaadan wada jir ahayn wax dhaqaaqay malaha marka hadda wada jir u tihiin oo ahaada waa magaalo kale kamid ah Soomaaliya ma jirto xataa Garowe dheeb Somaliland Puntland intaba waa magaalo kale markuu xataa madax ay imaado staff laan magaalada iska wareegto amnigeeda iyo de aamin gelin qof marka inaad ka faa'iideysataan geesiyaasha ay haysatiin ciidanka badan oo meesha jooga inay ku howlgalaan maadaama madaxweynaha maartay uu soo gabagabay rabo dagaalka wajiga koobaad wajiga labaad uu ka bilaaban doono Soomaaliya koonfur galbeed oo maadaama Hiiraan uu joogo saas ay soo soconayso in meesha marka culays in soo fuuri doono aad u dhabar adeegtaan aad la dadaashaan dawladdiina aad gacan ka siisaan sidii culayska idinka qaadana marka waxaan in leeyahay maamulka hal garab taagnaado gudoomiyaha waa qof fikradiisa fiican tahay oo ra'yina qaadanayo oo hadalka shacabkana maqlayo waa qof dhalinyaro mar walba dhalinyarada ku dhex jiro dhex fadhiyo sheekada dhalinyarada gurfta magaalada ka socdo maqla marka barnaamijkeena waxa waa caawa in aan taas ka hadalno inaan wada jir ahaano qofkii xunna aan iska saarno kii fiican maaragtay diyaan haye socodaan dhahno odayaashan maaragtay magaalada joogo marba maaragtay 17 dollar loo turaayo dawladda saan soo dhaa mucaaradka soo horjeesta ma anaga xilliga anaga mucaaradka soo horjeesan leen ama maxaafad waa xilligii hadda anaga indhaha noo furmeen aan maaragtay hore u socon lahayn odayaasha talada isku haa oo maaragtay iska dhigay inay meesha odayaalka yihiin dhalinyarada inay tusaan in talada ay iyaga ugu dambeeyaan horumarka aad tustaan kadib maaragtay odayaasha way ku taageeraan iyadana marka waxaan leeyahay dumar iyo caruur iyo dhalinyaro intaba inaad isku dubnaataan gudoomiyihiin iyo maamulkiina aad taageertaan wixii hore askiiloodan qabiilkan hadda magaalada isku haysto reer hibil ama reer kaasna ameel aska dhigno 100% intaas hadda caqabad nagu ah magaalada maaragtay deegaanka waxaan leeyahay horumar sameeya wada jir ahaada tusa dawlad iyo magaalooyinka kale Soomaaliya inay tahay magaalada xudur magaalo kamid ah magaalooyinka Soomaaliya oo quruxda badan waxaan ku tusi karnaa in anaga wada jir ahaano oo maaragtay kor iyo hoos ba maaragtay anaga aan isku duubnano maanta ma arkaysid xataa warbaahinna soo qaadanaysa xataa dad wax sameeyno in warbaahinta qaranka ama ma ahan warbaahin kale oo soo qaadanayso ama dadkan social media caanka oo siyaasadda ka faaloodo dhawaatada anaga haysto ama horumarka anaga aan sameeyno ma arkayaan ilaa anaga ma tusnina horumar sameeyno marka waxaan leeyahay wada jir ahaada guuleysta insha Allah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.